baarlamaanku soo ku sheegay waxa uu leeyahay nidaam buu leeyahay wadanka dastuur baa jira baarlamaanku waxa jira xeer hoosaad baa jira xeer hoosaadkaas qodobka 37 faqradiisa shanaad ayaa waxa ay ka hadlaysaa waajibaadka laga rabo gudiyada iyo qaabka hawshooda ay u qabanayaan marka baarlamaanka wax allaale iyo wixii oo ku saabsan waajib gudashadiisa annagu waxa way gudi ay ka soo bilaabataa arintu gudiga inuu hawshii oo loo igmado inuu ka soo tala bixiyo inuu go'aan ka keeno kadibna baarlamaanku ay ka doodaan ay ka fariistaan ay go'aan ka gaaraan marka arrimaha su'aashaad ay weydiinaysa anaga wax si official anigu media waa ka arkaa social media ama ha noqoto warbaahinta kale waxyaabo noocaas oo ka hadal laakiin anaga ka gudoon ahaan ka gudi joogta ahaan wax rasmi ah oo han noqdo ama xildhibaanka ama gudi ka yimid arintaas ku saabsan annaga miis noo saaran ama ajenda noogu jira ama xitaa lagu soo wargeliyay ma jiro baarlamaanku waajib uu leeyahay marka la keenayo ajendan marka la keenayo shuruudo ayaa jiro waxa weey waa iyo shuruudo ayaa jiro oo sharcigu uu qoray in shuruudahaas uu soo maro tiradii loogu talagalay ay keenaan ajenda marka la keeno waxa weey waa shaqada ugu horeysa in gudiga joogtada uu ka fariisto ajendaas uu fiiriyo uu mudeeyo hadii loo baahan yahay ajendaas uu ajenda u baahan in madasha golaha la horgeeyo in gudiga joogtada go'aan uu ka gaaro uu mudeeyo muddo uu qabto yiraahdo maalin fulaan la wargeliyo xildhibaanada la yiraahdo ajendahaas ayaana hor yaal aanu ka hadlayna ajendaha marka la keeno marka baarlamaanka golihii la soo hordhigo baarlamaanku wuxuu sidiisa wax ku go'aamiyo cod aqlabiyad ay wax ku go'aamiya ma aha rabitaankayga ma aha rabitaanka xildhibaan gaar ma aha rabitaanka koox gaar wax walba ajenda sharci ku dhisan sharciga soo maray nidaamkiisa soo maray golaha la keeno laga doodo cod la geliyo wixii cod aqlabiyad ay gaaraan aqlabiyadaas baa waxa go'aanka iska xeerosaadka ku qoran yihiin tirada waxa way waa arin walba ma ahan waxa way waa ay kala leeyihiin mawduucyadu waa ay kala leeyihiin mawduuc walba wuxuu leeyahay marka waxa way tira gaar nidaamka marka waxa way waa tirada xeerosaadku ku qoran yahay ajendahana saan ku sheegay cid walba oo ajenda rabto soo buuxiso shuruudihii marka lagu soo gudbin la ajenda ama tala soo jeedin sida dadku yaqaan loo soo buuxiso shuruudihii sharciga ah in gudiga joogtada la keeno gudigu marka uu go'aan ka gaaro muddo xilliga la geeyay baarlamaanka fadhigiisa